بسم الله الرحمن الرحيم. أخياري كسو دوادا وداني شو قيبتي سي لباد. قيبتي هورا waxaan kusoo qaadanay sida aad u ogaan lahayd Facebook-gaaga in lagu isticmaalayo iyo kale iyo hadii ay jirto inuu ka furan yahay meelo kale. Maantay waxaan ogaaneynaa qaabka aad u xifdisan lahayd Facebook-gaaga. Waad ula socotid mar walba hadii Facebook-gaaga cid kale ay soo gasho ama meel kale laga soo galo. waxaad furtaa Facebook-gaaga kadib meeshan option-ka ku dhufo kadib waxaad tagtaa here account setting meesha ku qoran tahay and then intaas kadib waxaad tagtaa security and login. Okay, barnaamijkii hore qofku dhaafay waxay ku saabsanayd meelaha mobilka laga soo galay. maanta waxaan u gudbaynaa sida aad u ogaan lahayd telefoonkaaga in la soo galay in kale ama ciwaankaaga Facebook in meel kale laga soo galay. Okay, waxaad imaataa qaybtan under setting extra security oo ay ku qoran tahay get alerts about unrecognized logins. Okay, then click on it. waxaad imaataa meesha ay ku qoran tahay notifications. hadda waxa ay saaran get notifications. marka hore waxay ahayd don't get notifications oo ah waxba ay soo ogeysiin. hadda waxaad ku dhufataa get notifications si aad u ogaatid ciwaankaaga in la soo galay, ciwaankaaga Facebook in la soo galay oo meel kale laga soo galay, si aad mar walba u heshid fariinta inay kuu soo gaarto. get notifications ku dhufo and then intaas kadib waxaad sameysaa save. okay, waxaad kaloo sameyn kartaa ciwaankaaga in on ka dhigta iyadana labadaba waad sameyn kartaa. tan notification-ka on wuu kusoo dhicin, mobilka kugu soo dhicin. maanta intaas ku egyahay casharka koowaad. casharkii labaad aan dhahay qaybtiisa hore waxa uu yeelan doonaa qayb labaad sida aad u xifdisan kartid ciwaankaaga Facebook-ga. siyaabo kale oo cusub ayaan ku tusi doonaa insha Allah. la soco qaybta labaad b insha Allah iyo barnaamijka wadani show. nagala soco qaybta Facebook-ga iyo YouTube-ka channel-ka Ibrahim Wadani. waan salaamantii.